السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعني سبتي بيش أكتوبر نايتاي كوي طوان سنة كنو ويهاي لبكون يشاني لباتن برنامج كنا مانتا سويال تي في وحينو كاقهد دونا أبال مارينتا سنة والبلا بحيوية نباد نوبل بيس برايسكا وهويني رير فنسويلا كوغولي ستي halkii Trump madaxweynaha Mareykanka uu quudareynayay inuu isagu noqon doono qofka kaliya ee u qalmaya sanadkan heli doona balse gool daraystay arrimahaas sida looga falceliyay gaar ahaan gudaha Mareykanka aqalka cad iyo waliba madaxweynaha oo hadlay arrimahaas iyo arrimo badan oo kale ayaynu ku falaqayn doonaa oo inuu ku eegi doonaa barnaamijkeena sooyaalka dunida ee sooyaal TV fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe haddii aad hore noola joogtana share garee aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu wacay guuleystaha abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka 2025 Maria Corina Machado kadib markii xukuumaddiisu ay si adag u cambaaraysay guddiga Nobel-ka ee abaalmarinta bixiya Trump oo muddo dheer u muujinayay rabitaan uu ku doonayo inuu helo abaalmarinta caalamiga ee nabadda waxa uu sheegay inay jiraan hogaamiyayaal caalami ah oo sii kordhaya oo u arka inuu isagu mudan yahay Nobel-ka gaar ahaan kadib markii qorshihiisa nabadda ee gasa uu helay taageero ballaaran maalmaha dambe guddiga Nobel-ku wuxuu ku dhawaaqay in Machado ay ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee sanadka 2025 sababtoo ah dadaalkeeda dheer ee xoojinta xuquuqda dimuqraadiyadda Venezuela iyo hadalkeeda nabadeed ee loogu guurayo kala talisnimada loona gudbayo dowlad dimuqraadi ah Machado oo waraysi siisay wargeyska El País ee lagu qoro afka Isbaanishka waxa ay sheegtay inay la hadashay Trump balse ma aysan faahfaahin waxa ay ka wada hadleen si kastaba ahaatee waxay mar kale u muujisay madaxweynaha Mareykanka oo ay tiri mahadsanid sida ay ku sheegtay qoraalkeeda aqbalaada abaalmarintaasi Trump oo hadal jeediyay fiidkii Jimcaha ayaa xaqiijiyay inuu la hadlay Machado isaga oo yiri actually got the Nobel Prize called me and said I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So and you could also say it was given out for 24. And I was running for office in 24, all of the transactions that we did in terms of closing. But there are those that say we did so much that they... Trump waxa uu yiri qofka dhabahaantii helay Nobel-ka ayaa maanta ay soo wacday waxayna igu tiri waxaan abaalmarintan u aqbalayaa adiga dartaa adiga runtii mudnaa Trump waxa uu suuqo leh isaga oo muusoonayo ku daray waxay ahayd arin aad u wanaagsan inkasta oo aanan oran markaas inkasta oo ay dhici lahayd inay sidaas samayso waxa uu sheegay in Machado uu ka taageerayay muddo isbedel isagoo Hussein Venezuela ay ku jirto xaalad burbura oo u baahan gargaar badan markii la shaaciyay guusha Machado xafiiska isgaarsiinta ee aqalka cad ayaa si kulul uga jawaabay afhayeenka Steve Chang ayaa bartiisa bulshada ku qoray guddiga Nobel-ku waxa ay mar kale cadeeyeen inay door bideen siyaasadda halkii ay ka dooran lahaayeen nabadda hadalkaasi waxa uu muujiyay niyad-jab iyo cara ka dhalatay in Trump oo taageerayaal badan u arkayeen inuu qalmo Nobel-ka sababtoo ah dadaaladiisa ku aadan nabadda bariga dhexe in isagii la dhaafiyay Machado oo caan ku ah halgankeeda nabadeed waxa ay sanado badan la dagaalamaysay nidaamka madaxweyne Nicolas Maduro waxa ay ku khasbanaatay inay qarsoonto kadib markii xukuumaddu ku adkaysatay caburinta mucaaradka xubno badan oo ka tirsan maamulka Trump sida xogayaha arrimaha dibadda Mark Rubio iyo Mike Waltz oo hadda aadan jiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa Machado hore ugu soo magacaabay Nobel Peace Prize ka sanadkii 2024
rubio wuxuu hore ugu tilmaamay Machado inay tahay muuqaalka adkaysiga iyo wadaniyadda oo aan marnaba ka tanaasulin dagaalka ay ugu jirto xorriyadda Venezuela. Trump isna waxa uu mar hore u sheegay inay tahay dagaalyahan xorriyadeed oo ay tahay in la ilaaliyo si ay u noolaato. Machado iyadoo ku dhawaaqaysay abaalmarinteeda waxa ay tiri waxaan u hubeeyay dadkayga Venezuela ee silcaya iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. inkasta oo Machado ay si gaar ah uga mahad celisay Trump, haddana saaxiibada siyaasadeed ee madaxweynuhu ma aysan soo dhaweyn guusheeda. Richard Grenell, safiirka Trump u qaabilsan Venezuela, ayaa si toos ah u yiri abaalmarinta Nobel-ku waxa ay dhimatay sanado hore. dhanka kale Benjamin Gordon oo hore uga tirsanaa golaha amniga qaranka ee maamulkii Obama ayaa sheegay in guddiga Nobel-ku uu muuqdo inuu diray fariin siyaasadeed oo ka dhana siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Venezuela. guddiga Nobel-ku waxa uu muujiyay inay rabaan in isbeddelka Venezuela lagu gaaro waddan nabadeed halkii xoog ciidan looga isticmaali lahaa, ayuu yiri Gordon. waxa uu intaa ku daray in Trump uu dareemay niyad-jab laba dhinaca, mid ku saabsan in la dhaafay iyo mid kale oo la xiriirta in la dhaliilay istiraatiijiyadiisa military ee gobolka Caribbean-ka. dhacdadan ayaa noqotay mid si cad u muujinaysa laba arrimood. Trump weli waxa uu doonayaa aqoonsi caalami ah oo muujinaya hogaamintiisa nabadeed, gaar ahaan kadib qorshihiisa Bariga Dhexe. iyo guddiga Nobel-ku waxa ay muujiyeen inay door bidayeen halganka dimuqraadiyadeed ee nabadda halka ay ka taageeri lahaayeen siyaasad xoog iyo cadaadis ku dhisan. marka la eego hadallada labada dhinac, waxaa muuqata in abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka 2025 ay isu bedeshay dagaal siyaasadeed oo sumad caalami ah wadata, mid u dhaxaysa aqoonsiga halgan nabadeed iyo muran siyaasadeed oo ku salaysan cidda u qalanta nabad dhaba. taas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeennii. waa bahda Soyaal TV Cabdirashiid Geyle oo idinla isma dhaafno.